munaasabadan oo dabaaldega 26 Juun exactly ahaan waxay ka turjumayso oo sheeg halkan ila taagan Nayrus ismahan okay kooda luuliya 26 Juun ma kala saar kartaa 26 Juun kooda burj khaliifada Soomaalida sawirada Xayaat Market Taleexa jooga dadkii oo magaalada dhan isku imaadeen waxay sugooyin 26 Juun oo maanta loo dabaaldegayo cawada loo dabaaldegayo marka naajigaas sugeena 5 saac oo waxa hal daqiiqo dhiman waaye sawiradiin markale waxa ku soo laabtay isgooska Taleex oo dad fara badan ay joogan kuwaasi oo rabaan inay u dabaaldegaan 26 Juun oo daqiiqada ay ka harsantahay sawiradiin waa 12 iyo mataqaana 49 waaye sanad guuradii 26 Juun oo mataqaana daqiiqada ka harsantahay 10 sano ka hor ay ugu dambeysay waqtigii saama loo dabaaldegay iska dhaafay 12 gactaama 4 galabnimo guriga mala soo bixi jiray marka cawada oo ah 2025 bisha lixaad 26keeda waa fiirinaynaa marka si loo dabaaldegi doono insha Allah waxa halkan la taagan wiil dhalinyaro ah kaasi oo calankiisa wato maantana diyaar u ah ama cawada diyaar u ah in oo mataqaana u dabaaldego sanad guurada 26 Juun markood soo dhaw waa dhaw macallin magacaaga maxamed muqtaar meesha macaadumaad waxa uu imaaday calankeyga Soomaaliya oo dabaaldego sanad guurada horta mataqaana sanad guurada maanta 26 Juun oo faraxsanaynaa calankeyga dabaaldego macnaha munaasabadan oo dabaaldega 26 Juun exactly ahaan waxay ka turjumayso oo sheeg kartaa manuu sheeg kar macallin taas kuma jiro waa iska soo qaata calankeyga soo qaatani okay marka dad kale ta weydiin doona insha Allah waa maasantahay 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo waxay ka dhiman tahay 6 saac habeenimo inay ku dhacdo 26 Juun waxa halkan ila taagan Nayrus ismahan okay waqti dambe waaye 6 saac habeenimo la marooya labadii halkan joogto waxa laga yaabaa inaan meel kale ka imaateen oo degmo dheer ka imaateen Taleexa joogtiin maxaa halkan u imaateen ina dabaaldegno shacabkan farxad la qaybsana halkan oo maan xamaasad dadka guri waa jiifi weyn anaga okay 26 Juun waa maanta dadka badankood markii la weydiiyo 26 Juun iyo kooda luuliya ma kala saari karaan hada 26 Juun waxay ka turjumaysaa mataqaana 26 Juun waa maalinta midowga oo galbeedka iyo maalinta midowga inay ta ma hubtaa mase waa huba okay adigana macallada waa hubna 26 Juun inay maalinta midowga ta ma taqaan kooda luuliyana kooda luuliyo maalinta xirmad qaade xirmad la qaat adigana xawriid maalinta qaadano okay waa maasantii labadiin waxa meesha ila joogo Ayub Maxamed Ayub soo dhaw waa dhawahay waxa waayay 6 saac habeenimo waxay ka dhiman tahay daqiiqadooyin صح meeshana joogtaa waxa kamid ah dadka meeshan imaaday صح maxaa meeshan u imaatay bal noo xogaa noo sharax waxaa meesha maanta u imaanay dabaaldega 26 Juun waxa waaye maalinta la qaado xurriyada marka saasa u imaana maanta caawa maalinta oo la qaato xurriyad inay tahay ma hubtaa mase waxa waaye shaka kaaga سايد أوه بسم الله ما يقمر هذا بالدقي هذا بسم الله بالدقي كودلول يا حريته مسا لحي لبعتك معناته حريته لحي لو كمان الحرية معناته حريته واو اوكي ما صنفه لكن مرنا ما لا يسمى لنا تقول waxaa 3 daqiiqo oo kaliya ay ka arsan tahay 6 saac oo habeenimo waxaan taaganahay mar kale isgooska Taleex yaa halka ila taagan Xayaat Jamaal soo dhawow meeshaan aad joogtaa waqti dambe ay tahay macnaha sababta oo maanta meeshaan ma noo sheegi kartaa walaa 26 Juun oo la dabaaldegay oo maado koodhe dadka taariikhaha Soomaaliya haayeen ma ihi okay laakiin fiiri waxa kala jirta kooda luuliya 26 Juun ma kala saari kartaa 26 Juun iyo kooda maya ma kala saari kari waa dabaaldeg leega taa dabaaldega oo maanta waa adagtaa keena iskala fad ma shaad bas iska daadaawme hadii li weydii taariikhaha ma sheegi kari laakiin sanadka dambe ka soo laabanaysid waa ina soo adkay laga rabaa ina kala saarto kooda luuliya iyo 26 Juun waxa kala yihiin kala saarto sanadka dambe insha Allah ma santaa waxa meesha ila taagan farxaan yare farxaan soo dhawow waa dhawaay brada meeshaan aad joogtaa waxa waay 6 saac oo daqiiqad yar ay ka harsan tahay meeshaan waxa ka socdo munaasabad dad badan ay isku yimaadeen qof walba calankiisa wato meeshaan asbaabaha adiga u maatay bal noo sharax waxa uu imid maanta farxad iyo macna dabaaldeg macna 26 Juun 26 Juun waxay munaasabadaas waxay tahay oo sax ah ma taqaana dabcan haddaan isku dayo ishak waxa weeye xurriyadda macnaha 26 ma taqaana maalintii la xoroobo waxa kala jirto fiiri maalintii la midoobay iyo maalintii la xoroobay
maalintii la xoroobay maalintee waay maanta waxay taagan tahay dabaaldega maanta aan u dabaaldegayo waxaa waaye 26 juun maalintii xurriyadda macnaha okay kooda luuliyana macnaha waa rajeynaa insha Allah okay macnaheedu naasaano kala aaqa qaad okay laakiin kooda luuliyo maalinta kooda luuliyo ayadana maxay ka taagan maxay ka turjumaysaa dabcan taliyo u adag tahay xisaabtaas aad ma soo farxad saacadda hadda waxay garaacaysaa 6 saac iyo 1 daqiiqo ama 12 iyo 1 daqiiqo magaalada waxa waa masxarad iyo waxa bilaabatay iyo damaashaad dadkana wada damaashaadooyin dadka qaarkood waxa waa muuqaaleeska duubooyin anakana halkan aan ku soo gaarnay inkastoo dadka badankooda wareysa ka qaadin laakiin inta ka qaadno soo gudbin doona insha Allah dhammaantiin waxaa dareemaynaa farxad iyo reereen dalkeenna cadaaladiisa aad buu u sii badanayaa marka waa u jeedaan Soomaalida cid isku wacdo ma leh laakiin 26 Juun way ku weyn tahay marka waxaan leeyahay dhammaan aan ku wada mideysnaana dadka maqan iyo dadka joogo dabaaldegyadii hore uu ku sii weeyaa wuuna ka balaarayaa sababtoo waxaad dareemi kartaa maskiin taajir curyaan nin kastoo ilaahay Soomaali uu ka dhigay muwaadin ah meesha way isku wada imaadeen marka waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan wabillahi tawfiiq wa idin salaama Mama,